maantay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa nagu kulansiiyey fursaddan qaaliga ah iyo shirkan ama kulankan aad iyo aadka muhiimka u ah intii maanta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa safarkii iyo socodkii iyo sidii loogu yimid shirkan muhimka ah haddii laga yimid galmudug iyo degmooyinka iyo haddii laga yimid muqdisho iyo haddii meelo kale intaba waa laga yimide intii maslaxadaas usoo safartay aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa waxaana leenahay qof walba intii niyaddii wanaagsaneed iyo jeedadii wanaagsaneed uu ka tala galay ashar iyo xasanad allah ka siiyo waxaan rabaa halkayna uga mahad celiyo sidoo kale dadkii mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay soo dhoweynta wafdigan wafuuddaas kala duwan ee welina gacanta ku haya howlahoodii iyo adeegoodii iyo habsami u socodka kulankaba iyagana waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay iyo intii gacan ka geysatay aad iyo aad baa umahadsantihiin waan ka cudur daaranaynaa mar walba martida iyo ergada sharafta leh hadda marti meeshaan laguma ahane xaafadihii baa laga maqan yahay ayaan uga jeednaa sidii la sheegay haddii wax yar yaroo wax si ka yihiin waxaan leenahay ka raalli ahaada maslaxada iyo danta loo yimid oo caamkaabaa ka weyne waxaan rabnaa halkaan inaan sidoo kale uga mahad celino intii hadashay siday u wanaajiyeen gaar ahaan odayaashii iyo akhyaartii salaadiintii u hadashay labada dhinac siday usoo dhoweeyeen maslaxada u aqbaleen guddigii iyo culamaa udiinkii loo saaray waxaan leenahay labada dhinac odayaashoodii iyo ergadii ka timid aad iyo aad baa u mahadsantihiin idinkana allaha ajar iyo xasaan idinka siiyo samarka taliska iyo hoggaansanka iyo soo dhoweynta nabadda u samayseen oo u gogol xaarteen intaas kadib walaalayaal sidii la sheegay maanta waxaan joognaa kulan ka mid ah kulamada la qabto kuwa ugu kheyr badan waxaa la yidhaahdaa saddex shir ama saddex kulankii aan ahayn lama ammaanin shareecada islaamka saddexdii shir mid ka mid ahaanan maanta u fadhinaa dad walaalo ah oo nasiib darro iyo dhibaata dhexdooda ka dhacday lagu hagaajiyo lagu nabadeeyo dhibaatadii iyo xumaantii dhacdana looga dawoobo arrin aad iyo aad u kheyr badan weeye oo ilaahay agtiisana qiimo badan ku leh noloshayada iyo mustaqbalkayagana ay kuwa xiran tahayba ay tahay wax oo boqolkiiba boqol ku xiran maxaa yeele haddii nabad la waayo ama dadka walaalaha ay dhibaato kala gaarto dee wax noo dhowrsan iyo wax noo ilaashan ma ay jiraan sidaas darteed sidii hore loo sheegay niyaddayada ku talagalkayaga qorshahayaga waa inuu ahaado mid ku fadhiya ama ka turjumaya oo keliya wanaag iyo in meesha maslaxo caama oo lagu nasto lagu nagaada ay kala gaarto dadkii walaalaha ahaa ee dhibku uu kala dhex maray waxaan rajaynaynaa saacaddan oo shirardacoodyadii iyo shirarkii goonigoonidaha noo soo dhammaadeen ilaahay fadligiisna hadda noo joogta inaan qabsannay guddi culamaa uddiin ah oo raalli lagu wada yahay marka halka aan soo gaarnay qof walba inuu ku shaqeeyo xagga iska dhigo wax difaacid iyo wax durjin iyo wax adkayn maxaa yeelay wax kastoo difaacda ama aad adkayso ama aad istiraado ku dheg meesha aad geynay ay tegaysa waa la yaqaanaa waxay tegaysaa inaad xaraggii maslaxada goyso sidaa darteed lama jiido lamana jiidi karo shay kasta oo wanaag iyo maslaxad looga meeshaas waxaan ahayna waxba kama galaan
waan hubaa dadka halkaa fadhiya dad qiimo badan u soo safray marti u ah ee guryahoodii uga maqan in nabad iyo wanaag la dhex dhigo dadkii walaalaha ahaa haddii walaalaha ka mida mararka qaar ay iska tasto inuu sida asaga uu rabo u jiido waa inaan inta kale u nasteexaysaa dad gala xaajo ama xaliya dhibna dadkii ugu qiimaha badnaa ayaan maanta ula baxnay waa culummadii culummaduna waxa way siday u dhowrsan yihiin waxa lagu xushay waxay tahay alla ka cabsiga aqoonta shareecada islaamka waxay shareecada islaamka ka qabto inay ku dhisaan khilaafka iyo dhibka dhacay curfiga iyo deegaanka iyo caqliga wuxuu ka qaba inay ku dhisaan intaba ehel bay u yihiin deegaankay ka soo jeedaan dadkay ehelkoodii yihiin dadkay yaqaanaan waxa la isku haya yaqaaniin iyagana waxaan dadaal fari maynee dadaal waa midkaan dhibkaas u saarnee waxaan leenahay xaqa iyo maslaxada iyo wanaagga ha ka dib dhicinoo ha dhowrinina mararka qaarna hasdiinina adinku culimmadiyaa tihiin dadkan xanafta ka ilaaliya meesha wanaaggu jiro birta ku dhifto aqoonteedii iyo cadaaladdeedii iyo wanaaggeedii waa leedihin waa hubnaa waxaan is leenahay halkaas waxaan u leenaha amay culimmadu mararka qaarkood inta arkaan odayaashoo doodahoodu ay kulul yihiin ay is yihaahdaan warkaa ku xoojinina intaayada kale waxaan adimo iyo garab u nahay waxa culimmadu hawsha ay gasho halkan waxaa fadhiya dad fara badan siyaasiyiin ah mas-uuliyiin ah soo shaqeeyey u soo safray u soo baxay inay xoojiyaan nabadda dhammaanteen waxaan garab u nahay guddiga culimmada ah oo hawsha loo saaray alla ma qadaro waxaan rajaynaynaa inaysan khilaaf iyo xumaanidna ka imaan la iskuna ag marin haddaan aragno dhinac dheeri ama dad dheeri ku jiro inteeda kale ay dhammaanteena isku dhinaca waana sida shacada islamku qabto haddii dadka la kala maslaxo oo la kala xaliyo oo wax la go-aamiyo go-aanka dadkii diida waxay noqonayaan dad ku caasiyey nabaddii iyo maslaxadii iyo wanaaggii taa rajayn mayno ilahayna waxaan ka rajaynaynaa dadkaan waa dad kulligood caqliga iyo sharciga iyo maslaxada iyo walaalnimada u hoggaansane inay sidaas noogu dhammaato ayaan rajaynaynaa colaadahan qabiilka iyo dhibaatadan waa laga hadlay waxa ay leeyihiin wakti badan gelin mayno shiikha ayaa ka hadlay khayr allah siiyo aada iyo aada runtii sheekh cabdiweli sida ay tilmaantay shareecadana islaamka inaad ku bedelato inaad aakhiradaadii cadaab iyo ciqaab aad la shaqaysato adduunyadaadiina halaag ku bedelato caqligaas qofku waa inuu isweydiiyaa waxa saaki maanta aad falaysid maxaa ka faa'idaysaa waxaani maxay maslaxad kuu leeyihin waxaa lagu dhiiradaa oo lagu dhagaa ama lagu adkaystaa wixii dan ku ah adduunkaaga iyo aakhiradaada waxaan haba yaraatee wax danay ku jirin khasaaro iyo halaag iyo hoog maahane lagumana dhego lagumana dhiirado sidoo kale waxaan leenahay qof kasta oo reer galmudug ah meel uu joogaba wanaag hauga qayb galo hana ku beeriyo intuu kari karo oo wanaaga dadka waxaa jira kuwo fariimo xun iyo dhibaato dadka iskaga dhex sheega waxa kan hadda soo baxay oo dee dhibaatada ah oo meedihii noqday qof walba mobilkiisa uu wuxuu rabo ka sheegi karo ayaa bulshada kuwa ugu aragti liita kuwa ugu caafimaad yar kuwa ugu dhaqan xun baa wax iska soo gudbinayaan waxay afkooda soo qabto kuwaasna waxaan leenahay ilaahayna uga baqa ummaddana ka xishooda inaad dhibaato iyo wax qaldan usoo gudbisaan dadka walaalihiinana wanaag iyo ku biiriya
iyo wixii dantooda ku jirto waxaan rajaynayaa halkan hawshan inta nabad iyo nabad islaax noogu dhammaato meelo kale hadda galmudugaha iyo walaalaha kale oo labada isteedoo hadda galmudug iyo puntland dad ka soo jeedaa waxaa dagaal ku dhex maray saad ogtihiin gobolka mudug qayb ka mid a muddooyinkaana waa soo jirtay way soo jiitamaysa nabadna waa ugu baaqaynaa sidanoo kale inay dhibkaas joojiyaan oon cidina tallaabo qaadin qaldan waana ka wada hadalnay madaxda puntland in hawshaas la galo oo lagu baxana waa dhaqsaan insha allah uga ballanay oo dadaalo iyo lagu bixiyo juhdi odayaal iyo khiyaar iyo madaxna waa u dirnay hadda dad badan oo u dirnay kuwana haddaan dirayna haddii la yidhahdo waxaan rajaynayaa halkan khiyaarta fadhida markay hawshaas inta nabadtan nagu dhammaato taas inaad islaaxeeda ka qayb gashaan iyo nabaddeeda iyo hagaajinteeda ilaahay idinkii dadkan soomaaliyeed meel ay joogaanba dhibabkan iyo colaadahan iyo waxaan aadka u liita muddo dheer sidii ay dowladnimadii jilbaha dhulka ugu dhifatay oo awooddii ay u yaraatay dowladnimada way soo jiraan welina waa jiraan iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii soomaali meelay joogtaba colaadaha iyo isdilka iyo macno darada in ilaahay subxaana wa tacaala naga baxsho wanaag iyo maslaxo iyo walaalnimona ilaahay dadkeena dhex dhigo innagana midaan waxaan ilaahay idinkii leenah guul iyo khayr iyo nabad allah nagu dhammeeyo culimmadii waa joogaan saacaddan laga bilaabo gogoshiin waa noo furan tahay culimmaduna waxaan rabnaa inay hawshii galaan dadkii say ugu tala farsamada iyagaa geli doonee dhegaysigii inay hawshii noo bilaabaan oo haddaba haddii la qadeeyo oo laga baxo hawsha howlkan laga baxo in hore laga galo hawshii garsoorka iyo gudagelidda nabaddii iyo xaajadeedii haddii laa yidhaahdo kulamadii daahii yarkaa soo daahnay hadda kulamo daceedyo iyo qayb ka mida xalka baa noo socotay iyadiina meel fiican bay noogu soo dhammaatay waxaan leenahay inteeda kale istaan bayn idiin nahay culummadeenna sharafta leh iyo khiyaartii odayaashii sharafta lahaa hawshii noo gala geedkaan idiin fadhiisanaynaa waxaan sugaynaa guddoonkiina iyo hawshoo la qaato iyo arrintoo ku dhammaatay guul iyo nabad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu